dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgalkii laga fuliyay duleedka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose lagu qaarijiyay 10 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. howlgalkan waa mid qorsheysan ciidanku ay qaadeen. warkan iyo waliba macluumaad kale la xiriira wasaaraha Soomaaliya oo asna ku wajahan magaalada Marka ee xarunta Shabeellaha Hoose. Rijaal Cabdi Maxamed. ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan guutada 14 Oktoobar waxay sheegeen in howlgalo kala duwan ay ka wadaan agagaarka deegaanka Jirimarka ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo saldhigyo ciidan ay ku leeyihiin Al-Shabaab. howlgal xalay soo bilowday intii ay wadeen ciidamada dowladda Soomaaliya sida ay sheegeen waxay ku dileen 10 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay sheegeen inay dagaal culus ay ku soo qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee howlgalka ka waday duleedka magaalada Marka ee caasimada gobolka Shabeellaha Hoose. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo howlgalkaas hogaaminaysay waxay warbaahinta u sheegeen inay dileen ugu yaraan 10 xubnood oo ka mid ah ururka Al-Shabaab ee isla markaana ay kala wareegeen hub iyo saanad ciidan oo ay wateen. sidoo kale saraakiisha waxay hadalkooda intaasi ku dareen in weli howlgalladaasi ay sii socdaan isla markaana ay doonayaan in Al-Shabaab isla inta deegaanada hoos yimaada magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ka saaraan. weerarkan xalay Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka Jirimarka ee duleedka Marka waxa uu ku soo beegmayaa xil lagu wado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre in maalinta berri ah uu gaaro magaalada Marka. ammaanka magaalada Marka ayaa aad loo adkeeyay iyadoona guud ahaan la xiray deegaanada hoos yimaada magaaladaasi wadooyinka soo gala iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah ee magaalada Marka. sidoo kale waxa guud ahaanba maalinta berri ah aan shaqayn doonin iskuulada waxbarashada ee ku yaala magaalada Marka iyadoona maamulka degmada Marka ay sheegeen inay u diyaar garoobayaan soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana weli ay jirto cabsi ku aadan in ururka Al-Shabaab ay magaaladaasi weerar ku soo qaadaan maadaama sida saraakiisha ciidanka dowladda ay sheegeen kooxdii xalay ciidanka dowladda la dagaalameen ay ku soo jeedeen magaalada Marka. wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre shantii cisho ugu dambeysay waxa uu booqasho ku joogay deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo wuxuuna qorshe yahay inuu gaaro gobolka Shabeellaha Hoose oo Koonfur Galbeed ka tirsan gaar ahaan magaalada madaxda gobolkaasi ee Marka halka oo haddaba ay ku sugeen xubno hordhac oo wafdigiisa oo wasiirro iyo waliba xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo deegaankan ka soo jeeda. wixii macluumaadyo ku soo kordhay safarka qorshaha ee Marka iyo waliba xaaladda halka ka jirtaba iyo howlgallada ciidanka ay wadaan wararkeena dambe ayaa saaxiibayna ku dhageysan doontaan insha Allah. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Master Baashi waxa uu sheegay in weli ay socoto dib u habeynta lagu sameeyo hay'adaha garsoorka dalka. waxa uu sheegay inay jirto cabasho badan oo dhanka garsoorka laakiin waxa uu tilmaamay in qorshaha ahaa in hay'adaha garsoorka ee dib u habeen lagu sameeyo ay tahay weli mid qabyo ah oo la dhameysan. waxa uu sheegay in hadda dhalinyaro badan imtixaan laga qaaday kuwaas oo sheegay in tababar la siin doono si ay qayb kaga noqdaan dhiiga cusub ee lagu beeri doono garsoorka. waxaana sheegay in laga saari doono meesha muusiqi la xiriira arrimaha garsoorka si ay u yaraato cabashada dadka ka soo yeeraysa la xiriira arrimaha garsoorka. runtii maxkamadaha hawlahan hadda ka waramayay guud ahaan waxay saameynayeen maxkamadaha oo dhan haddii ay noqoto gudiyada kormeerka haddii ay noqoto nidaamka dacwadaha loo maamulayo haddii ay noqoto garsoorayaashan la qaadanayo haddii ay noqoto tababaradan socda dhammaantood waxay saameynayaan haddii noqoto fulinta dhammaantood waxay saameynayaan maxkamadaha oo dhan marka isbedeladaas oo dhan waxay ka jahan ka hana qaadeen guud ahaan maxkamadaha dalka laakiin isbedelkii ugu weynaa aynu rabnay in lagu sameeyo waxa weeye waa kan hadda socda aynu ku qaadanayna garsoorayaasha iyo kaaliyaasha cusub insha Allah. qorshaha hiisiis waxa weeye sidii ummadda Soomaaliyeed u heli lahayd garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaad ah oo bulshadana adeega cadaalad oo mantaysiya ilaaliye sharciga dhowrana xuquuqda aadamaha. hadafka loo socday halka higsiga aynu leenahay horta waa kaas weeye. dhinacyo badan buu markaa leeyahay. dhinac waxa weeye waa guud ahaan dib u habeynta garsoorka oo marka laga hadlayo dhinacii arrimahan aynu hadda ka hadlaynay tayeynta garsoorka oo laga tayeeyo dhinacii aqoonta laga tayeeyo dhinacii qalabka laga tayeeyo dhinacii dhismayaasha laga tayeeyo dhinacii habdhaqanka in la bedelo habdhaqanka garsoorka la bedelo aasaaska maxadka tababarka aynu hadda ka hadlayno ka shaqaynta aasaaska garsoorka fulinta xukuumada garsoorka ka soo baxaya waxyaabahaas runtii ugu waaweyn
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu ka qaybgalaya barnaamij ka baxayay warbaahinta dowladda waxa uu sidoo kale uu sheegay in markan ay yaraato cabashadii badneed ee dadka ka muujinayna arrimaha garsoorka taasna waxa uu sheegay in dadaalkeeda uu qayb weyn uu ka lahaa madaxweynaha Soomaaliya waqti badan ku bixiyay sida uu sheegay in isbedel lagu sameeyo hay'adaha garsoorka oo markii hore cabashada ka jirtay helay mid isu soo tareysay wararkana kalan eego ee odayaal waa baaq ayaa loo jeediyay maleeshiyada hubeysan oo indhawaalahanba ku dagaalamaya deegaano hoostaga gobolka Galgaduud odayaal ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta waa Galmudug waxa ay ku baaqeen in si sharci la'aan loo joojiyo dagaalka ee Galgaduud maleeshiyadka hubeysan ku dagaalamaya kaas oo dhowrkii cisho ugu dambeeyay tiro dad ah ay ku dhinteen wax maxamed ayaa warkan si dhameystiraysa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa kulan ku yeeshay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada Galmudug kuwaas oo si kulul uga hadlay colaad beeleed ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud odayaasha oo ka soo kala jeeda dhinacyada ay dirirtu dhex martay ee deegaanada hoostaga degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku baaqeen in dagaal beeleedyadaasi la joojiyo isla markaana wixii tabasho ah wada hadal lagu dhameeyo qaar ka mid ah odayaasha warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay bilaabi doonaan dadaalo nabadeed oo ku aadan sidii xal buuxa looga gaari lahaa colaadda kusoo laalaabatay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Balanballe shalay ayaa waxaa deegaan duleedka ka ah degmada Balanballe dagaal uu ku dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo horey dilal aanooyin qabiil ah uu ugu dhex maray deegaano hoostaga degmooyinka Kuriceel iyo Balanballe waxaana dilalkaasi iyo dagaaladii dhacay ku geeriyooday in ka badan 5 ruux wararkeena kalena waxaa ka haray taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya waxa uu sheegayaa in dawladda Britain markan ay Soomaaliya ka taageeri doonto qalabeynta iyo waliba tababar la siiyay ciidanka booliiska Soomaaliya xilli magaalada caasimadda Muqdisho kulan uu kula qaatay saraakiil ka socday dawladda Britain taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya waxa uu sidoo kale uu sheegayaa in ay diyaar u yihiin la shaqeynta dawladaha Soomaaliya ka taageeraya dhanka ciidanka Britain waxa qayb ka tahay wadamada midowga Yurub ku jira ee dhaqaalaha ugu badan bixiya ciidanka booliiska oo ka kooban dalalka caawinaha booliiska xagga tababarada iyo mashaariicda waxaanu ka wada hadalnay arrimo hore u socday iyo fikirka cusub ee aanu doonayno inaanu ka hormarino booliiska waxaan kaloo maanta la kulmay safiirka ingiriiska u jooga Soomaaliya oo aanu ka wada hadalnay calaaqaadka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo dalka ingiriiska wakiilka ka yahay iyagoona horeba nooga caawini jiray inay haddana naga sii caawinaan tababarada qorsheynta iyo muxuu ahaa gaadiidka iyo isgaarsiinta booliiska si aanu kor ugu qaadno tayada iyo waxqabadka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muxuu ahaa aanu isleenahay maanta inuu la wareego amniga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo hadda oo ka howlgalo ciidanka xooggiisu waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto maanta xamar ama magaalada Muqdisho amnigeedu aad iyo aad u fiican yahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu sidoo kale uu sheegay in booliisku ay ka go'an tahay sidii loo xasilin lahaa amniga caasimadda waxa uu sidoo kale uu sheegayaa in ciidamo badan oo booliiska ka tirsan markan loo diyaarinayo sidii ay u soo heli waa sidii loo sii lahaa tababaro caalami ah si ay sare loo qaado amniga iyo waliba la dagaalanka waxyaabaha waa dadka lidiga ku ah falalka amni darrida ah goordhow wararka dibadda ayaan gudagali doonaa isla wararka gudaha waxaa ka haray taliyaha guud ee ciidanka difaaca maamulkaasi Puntland waxa uu sheegayaa ama uu ka warbixiyay safarro uu ku tagay gobolka Sanaag meelo kamid ah gaar ahaan deegaanada ay ku muransan labada maamul ee Somaliland iyo Puntland
sareeyaga siyaasiyiin Cumar Dheere oo taliyaha guud ee ciidanka difaaca Puntland oo la hadlay warbaahinta isagoo ku sugan magaalada Garowe waxa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay cid walba oo ku soo gardarootay inay iska difaacdo sida uu sheegay waxuna sidoo kale uu taliyuhu sheegay in isbedel lagu sameyn doono ciidanka booliiska si waa ciidanka militariga ee maamulkaasi Puntland si loo horumariyo aqoontooda iyo xirfadda ciidanka ay wataan waxaana sheegayaa in ama faahfaahin badan uu ka bixiyay meelaha uu tagay ee gobolka Sanaag ee maamulka Puntland iyo Somaliland ay ku muransan yihiin iyadoo ay nagala soo qayb galeen saraakiil la taliyayaal ah oo odayaashii hore ah waxaanu ka wada hadlaynay sidii ciidanka howlihiisa looga tashan lahaa sidii waajibaadka nagu soo fool leh loo gudan lahaa sidii loo kala war qaadan lahaa waxaan uga warranay warbixin baanu ka siinay kormeerka iyagii aanu ku tagnay gobolka Sanaag iyo qaybo ka mid ah gobolka Bari iyo gobolka Highland si wanaagsan baanu arrimahaas ugu kala war qaadanay aad iyo aad u wanaagsan wixii waajibaad ahaayo hadda loo baahnana waa isfaray annagu ninna cadow uma nihin ninnana colaadiisa ma rabno hase yeeshee haddii ciddiina soo gardarraysatahoona soo daandaansataho dhulkayaga iyo dadkayaga iyo deegaankayaga soo hunguriyeysa diyaar baanu u nahay inaan daafacano arrintaas waa ka wada tashanaynay waxaanu kaloo ka wada tashanaynay sidii magaalada caasimadda ah ee Garowe tayeynta amnigeeda loo sugi lahaa taasoo loo qaybshay ciidamo gaar ah oo shalay hawl galay hawshaasoo si wanaagsan hadda u socota iyadana waa ka wada hadlaynay waxaanu kaloo ka wada hadlaynay sidii ciidanka dib u habeyn loogu sameyn lahaa siiba xagga waxbarashada oo aanu dugsiyo ugu xirayn lahayn si aqoontooda kor loogu qaado xirfadeed taliyaha guud ee ciidanka Somaliland ayuu kaasi ah sareeyaga siyaasiyiin Cumar Dheere ugu dambeyn qoyska Robert Mugabe Allahu naxariisto madaxweynihii hore ee waa madaxweynihii Zimbabwe iyo waliba dawladda dalkaas ayaa muran badan uu ka taagnaa halka lagu haysan lahaa ugu dambeyn waxa la sheegay in markaan ay ka heshiiyeen madaxweynihii hore Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa lagu aasi doonaa qabuuraha lagu aaso halyeeyada ama dadka ugu waaweyn magac ku leh Zimbabwe ee ku yaala magaalada Harare sida ay BBC-da u sheegeen qoyskiisa afayeenka qoyska ee la yiraahdo Lo Mugabe ayaa sheegaya in wali la isku raacin maalinta saxda ah la aasi lahaa balse aaska ka hor waxaa la sameyn doonaa xaflad qaran waxaana sidoo kale xigi doonta munaasabado kale oo lagu weyneynayo tuulada uu ku dhashay Mr Mugabe qoyska Mugabe iyo dawladaba waxay markii hore waxa ka dhaxiyay khilaaf ku aadan goobta lagu aasi lahaa madaxweynihii hore ee wadankaasi Zimbabwe Mugabe oo daahan jira 95 sano jir ayaa waxa uu toddobaadkii hore ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalkaasi Singapore muddo toddobaad ah wali lama aasin meedkiisa ayaa yaala garoonka kubadda cagta ee River ee ku yaala caasimadda Harare ee dalkaasi Zimbabwe kumanaan kun oo qof ayaa u baroor diiqaya tacsiin u dhigaya kuwaas oo isku soo baxay garoonka iyo waliba daafaha magaalada gaar ahaan magaalada Harare oo caasimadda wadankaas si ay u muujiyaan xushmada ay u hayaan meedka Robert Mugabe oo hogaamiyihii ugu waqtiga dheer ay soo maamulayay wadankaasi Zimbabwe Robert Mugabe waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Zimbabwe ee xilka hayaa in ka badan 30 sano wuxuuna xilkan qabtay markii asaga oo daahan aad u yara ugu dambeyn xilkan waxa si awood ah loogu wareejiyay 2007 markaa wixii ka dambeeyay waxa uu ahaa nin da ah oo iska xanuunsanay ugu dambeyn toddobaad ka hor ayuu geeriyooday wali lama aasin waxaana dawladda iyo qoyskiisaba maalmihii dambe ka taagnaa muranka halka lagu aslaha laakiin ugu dambeyn xubin kamid ah qoyska waxay warbaahintu sheegeen in la isku afgartay in lagu aaso qabuuraha lagu aaso dadka waaweyn ee sumcadda ku leh wadankaasi Zimbabwe